lixdankii anigu nin jiraan ahaa oo aniga dhowr dowladood baa iga baaba'ay oo madaxweynayaal suurkaygan dhowr madaxweynahan la hor fadhiista iyo taygaygan maaha iminkoo qura markaa taygaygan waxaan la hor fadhiistay suurkayga madaxweynayaal badan oo anigu dowlad niqaan baan ahay qabiilla ma aqaani qolona ma aqaani laakiin waxaan leeyahay inay gefayaan baan anigu arkaa waxa weeyaan go'aygii shaalka ahaayaan sidaa u ruxayey waar kala jooga aan lahaa xabadihii ku yeelayaan maanta keenaabay ahayd laakiin insha Allah waan keeni doonaa weli wuu yaallaa go'aygii shaalka ahaa xabadihiisii ku dhacay waxaanu samaynay markaa ilaahay baa noo kala qaboojiyey waxaanu samaynay maxamed xaashow mar labaad oo dambe haddaan ka maqlo guurtada sheekadeeda iyo waa dhaxal iyo intii hore joogay de waxa ku qabsadaa aduunba og wallaahi godkaagu biyo kuugu geli doono waxaad had iyo jeeraale sheegtaa inaad had iyo jeeraale madaxweynaha aad farta ku biiqdo fartan wallaahi kugu fiiqi doona laakiin dee baanka wuu yaallaa baanka wuu buuxaa laakiin waxa la isweydiinayaa kii suuqa marmari jiray meelaha lagu qaadqaadi jiray dadka la siisiin jiray waxaasunbaa la waayay horta dhaqaalu waa kadh halkaasu jooga dowladdu waa intaa marka kale maanta dhaqaalaha innaku dabadaynu wax ka iibsannaa gaadiid badan baynu iibsannay raashinka baastada iyo bariiska dabadaynu ka soo iibsannaa yayaan ka dhaqaalo badan qani baabaynu nahay mar haddaynu dabadda wax u dirayno ka dhulkana waynu iska heli doonnaa haddii alla idhaahdo halkaasay maraysaa 1300 baa iminka ku jira 500 oo hablaabaa jooga waa 1700 waxa kaloo jiray haadaha waxa loo sameeyay wasaaradaha wax weeyaan ilaa 1700 baa kuwaana loo waxay noqdeen 5770 ayaa la shaqaaleeyay intii madaxweynahani joogay shaqaalihii way isleeyihiin intii hore iyo intan imika bilaabay yiri khadar waxaan leeyahay khadaro dadku hooyada iyo aabaha iyo walaalada hageysay joogaan waa muraal dilaac bay ku ahaayeen markii aad soo hadashay wax weyn bay ayay ku haysteen oo shaqo tagay guriina ku dhamaaday guri waa ku dhamaadeen laba nin Soomaaliyeed ku tihiino waa ra'iisul wasaaraha iyo maaliyadda guriyada idin dhamaaday waa hargeysa ka dhisaysay Soomaaliya intaasna waxba idin goyn mayso raale ahaada iska kaale dalkiini afis baan idinka idin qaadaynaa ila maadaama aad adduunkii aad ku soo aad u shaqo tagteen hargeysa xamar ka dhisan ama Kismaayo ka dhisan ama Puntland aad ka dhisan aad halkan ka dhisatay aad iyo aad baan idin soo duceynaa kii ayuu saadka samaysay Mareykanku 8 bilood buu u haystay 8 bilood markuu arkay ayuu iska xiray waxaan leeyahay saadka gabigiisa waa la xiro lacagteena maada xirootay xagee jirta Soomaaliyeed xagee qabatay hawa lagu qaatay way xareysan tahay waa lacagteena noo soo celiya war aamus deg berde ariskaamul dibtiriyo ko kaadi aan dabaasho aan soo haabaya gudoomiye nabadu maanta waa nabad weyn baan taagnahay anu nabad baan arkaya wax nabadoo wax dhiboo jira ma jiraan waa midhan meelo ka dhacdhacaya بربران نبضة هرجيسان نبضة برعة نبضة بورمان نبضة واربيا دونيسا يا دونيسا دوام ميلاد بورسة بلا عن لباه دوا إن مدى النباق عليه إمي كان لو تجدون هذا الله يقول هو إيمانيا هذا الله واحد اللي بهو ترى أنا بتشرو وحويان
meel qurun baa lagu soo duulayo meeshan waxa weeyaan waa laascaanood waa layna ku soo duulay markii la soo duulayna reerkii deganaana waa laga qabsaday innakana waa laga qabsaday laakiin waa dul joognaa abgaal abka gabiyay oo yiri jannad jeeb reer hebel ku jirta bas waa qaadateen adin ka bacdina isaaqa noqotay haddii cid xabad kugu soo rido waxay taadan ogay oo xabad kugu soo rido adna xabad haysatid faataxa lama aqrinaayo xabada loogu jawaaba hadduu idin rooyahan la jira hadduu shabaab idin rooy anaga maxaa min kaga reereebayna haddaba ku darsama haddaad rabtaan waaba ku jirtaan horey u gala wixii aad ka heshaan annaga waxaan naga siinayna yaa waxaad ka heshaan waxbaan naga siinayna ninkii illa shub ninkii lugla shub ninkii gacan la shub dhaqaaji hadda ha cariirin ilaa wii lugla waa lagama rabo inta da'da waa idin sheegoo nimankaasoo farsamadooda wataa xoogaa yaa loogu dulqaadaa su'aalaan isweydiinaynaa marka adiga lafta aan ku weydiinaya shacabka iyo shabaab yaa badanaad u malaynaysa shacabka amaan isku diidanna may maalin haddaan u wada dhaqaaqno soo shabaab maalintaa kuma eka yaa maalintaasoo ku ekaana haddaan maalin keliya u dhaqaaqno oo meel kasta ummadda joogta la yidhaha war cadowgaas ha la qabto qoriba ma heshiid laylagu dilo shabaab meeshuu ku ekaana haddana waddada loo mari kara taas waaye macnaa shabaab si kale kuma dhammaanayo waxaan idiin sheegaynaa dad soomaaliyeedaad tihiin meeshaan aad ku xidhan tihiin nacayb uguma xirnidin nacayb la idin nacab yahay uguma xirnidin laakiin kiis adinku aad gasheen dembigiyaa la inka jaasinayaa macna ogaada inaan la idin nabcayn haddii la idin nacab yahay geel la idinma keeneen haddii la idin nacab yahay habeen walba midaa inta la qabtaa badda lagu ridi lahaa maxaa loogu diiday waa la idin jecel yahay dalkiinnaa idiin baahan adinka ayaa inta iskeenay marka waxaa loo baahan yahay inaad garowsataan ciqaab kale inaan la idiin keenin ee dhaqan toosin iyo edab iyo dhaqan celin inaad u joogtaan inaad ogaataanaa la rabaa sidaan ku nimid xildhibaankii ku yimidna isku midaan nahay waxbaan isla dooranayna sababtaan meesha u midna waa saas xildhibaannimadana waa saas wabilaahi tawfiiq maxamed sheekh ciirow maxamed sheekh soo qabaya muxuu dhawe wax dad kale idiin sheegay le maxaa u raacdaa dad baa idin yimid oo janna idin gelinaynaa naydi qalab abgaal abka gabiyey oo yidhi jannad jeeb reer hebel ku jirta bas waa qaadateen adin ka bacdina isaaqaa noqoteen adinkoo hargaysa agteeda marayaan inka soo gaarin tagi rabtaan annaga maa isaaqa shuqul ku leh isaaq ree waqooyi waa annaga ree waqooyi miihin racan weynaana ree waddankaanaan waa nugula ogya 35 sano inaad tabcataan xaqa u lahaydeen barkeed dalkaad leedihiin dawladdiina waa tagtay xilliga imaadda allahna gaarsiiyaa sheekada lagu dabaqaay dawladdii waa timid way caga dhigatay way joogtaa way soo noqoto waxeedii rabtaa macna adinka dadkan cabsida badan oo aad dhalaysaan dhaaf waxaa idinku ogi dad geesi oo run sheegaya inaad dhashaan ninaan intaas yeelin wax kaa dhalin diid waxaaga haysa idhaafdaha iska buriy niman yahow annaga haddaa wiilal iyo gabdhaba ciyaal iskoolaad noo aadiyeen dadka waa ka harnay hadday koow yihiin carruurtanada baydhabo sigili mari hadda hadday xabad dhacdana dagaal dhacana ilmihii iskool ma aadayaan si ayna taas u dhalan yaan sisteemka u difaacaya ninkii raba ninkan inuu galo oo weeraro wakhtigiisi markuu dhammaado ha eryaan intii ka horraysa looma dhawaan karo